ayay guutada loogu magac daray Heliya ee ilaa kunka ku dhaweey ka tirsan ciidanka Djibouti ee dhawaanta u anbabaxaysa dalka Soomaaliya waxa uu joogay madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo ay weheliyaan ra'iisul wasaarada Daleyta Maxamed Daleyta iyo wasiirka gaashaandhigga madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo mas'uuliyiinta ayaa ugu horeyntii ay salaan sharaf ka qaateen qaar ka mid ah cutubyada ciidanka oo goobtaasi ku sugnaa waxayna intaasi kadib ku soo gaaf wareegeen waaxyaha kala duwan ee ciidanka oo halkaasi iyagu salaamo kala duwan kaga qaatay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo mas'uuliyiintii kale xanadada Djibouti guutada hiilbatihi waxaana halkaasi ku soo bandhigay heese kala duwan kooxda xarbi ee dhinaca fanka u qaabilsan ciidanka qalabka sida
Behena siyo, oba kura
jabuutow guutada hiil baa tihiin مؤختي هبوني قوتدا هيل بانو نهي مؤختي هبوني قوتدا هيل بانو نهي قوتدا هيل بانو نهي مؤختي هبوني قوتدا هيل بانو نهي أنان توسم بانغاي هالبولغا دوكانغاي عين خير كمغدا إن دلوغو هلايو عرقتي دهو بانغاي أنان توسم بانغاي هالبولغا دوكانغاي عين خير كمغدا إن دلوغو هلايو عرقتي دهو بانغاي mantigani dabbu hawlgalaanahay waa mantigani dabbu hawlgalaanahay waa mantigani dabbu hawlgalaanahay waa mantigani dabbu hawlgalaanahay dagaal hiil baan u ahay nabadda hiil baan u ahay degani hiil baan u ahay damnimo hiil baan u ahay dalkana hiil baan u ahay dadkana hiil baan u ahay diintana hiil baan u ahay
dagaal hiil baan u ahay nabadda hiil baan u ahay degani hiil baan u ahay dadnimo hiil baan u ahay dalkana hiil baan u ahay dadkana hiil baan u ahay diintana hiil baan u ahay soomaaliya horumadkeeda horseed wacan baan u ahay horseed wacan baan u ahay soomaaliya horumarkeeda horse wacad baan u ahay horseed wacan baan u ahay soomaaliya horumarkeeda horseed wacan baan u ahay horseed wacan baan u ahay soomaaliya horumarkeeda horseed wacan baan u ahay horseed wacan baan u ahay
kadib ayaa la bilaabay qodbadihii kala duwanaaye goobta laga soo jeedinayay waxaana ugu horreyntii hadal jeediyey wasiirka gaashaandhigga mudane cabdulqaadir maxamed kaamil isagoona si weyn ugu nuuxnuuxsaday waxtarka ciidanka dalka jamhuuriyadda jabuuti iyo waajibka saaran taasi oo ay kow ka tahay inay ka taliyaan isla markaana ay ka shaqeeyaan nabadda ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo hadal dheer halka ka jeediyay ayaa isaguna waxa uu waano iyo dardaaranba u jeediyay cutubyada ciidanka guutada Hiiliya bismillaahir rahmaanir rahiim الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم aniga iyo waqtigu igu simay inaan halkani maanta laba kelmadood idinka idhaahdo wasiirka difaacu wixii uu dardaaranni oranayay wuu yiri aniguna waxaan isku dayayaa bal laba kelmadood oo dardaarana inaan idhaahdo saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo dablahaba gaashaanlaha hiil Soomaaliya u baxayow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa aan halkan isku soo taagay waxa weeyaan maanta maalin taariikhiya maalin weyn weeyaan xaggeena maxaa yeelay hawl qawmi ah hawl qaran iyo hawl khayriyaba waan gudanaynaa waxa aad halka 4 bilood u joogteen waxay ahayd inaad isku diyaarisaan inaad isku leeylisaan in aad ka soo baxdaan hawl qaranku idin dirtay hawl nabadeed magaca hiilna waxa macnaha uu leeyahay waxa weeye nabadda ayaad u heelanaysaan Soomaaliya aad u heelanaysaan ummadda Soomaaliyeed baad u heelanaysaan sharafta Soomaaliyeed baad u heelanaysaan dalkiinana sharaf baad u soo kordhinaysaan diintiinana karaamad baad u keenaysaan iyo cizi baad u keenaysaan maxaa yeelay nabadda ilaalinteeda sharafta ummadda Soomaaliyeed soo celinteedu waxay tahay wax qaaliya weey inta ay dhibaatada Soomaaliya ku jirtay waxaan ka shaqaynaynay wuxuu ahaa in aan xagga isku soo dhaweynta ayaan ka shaqaynaynay maanta waqtigii baa yimiday aan leenahay xukuumadda iyo shacbiga Soomaaliyeed annaguna aan garab istaagno aan u heelino aan daafacno nabadiisa aan daafacno shakhsiyadiisa aan daafacno cizigiisa aan daafacno midnimadiisa maxaa yeelay wax aanan u naxayn baa yaa helay 20 sanadood dadkii masaakiinta ahaa ee shacbiga ahaa ee caadiga ahaa waxay waayeen hurdo wanaagsan bay waayeen nabadgelyay waayeen waxay waayeen risqigoogii sidii ay u heli lahaayeen bay waayeen waxa ay ku waayeenna wax